Soomaaliland wali waxa ka taagan hadal haynta iyo waliba buuqa uu dhaliyay buuqa uu qoray hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan adaba buugaas qaybo kamid ah waxa uu kaga hadlay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland xukuumadii Siyaasi Maxamed Xaashi Cilmi waxaan jeclay Maxamed Xaashi Cilmi in aan wax ka weydiiyo arinta Xirsi buuga ku qoray adiga dabcan ku khusaysa waxa kamid ah waqtigii uu horeeyay xukuumadda la dhisayay oo aad ugu ahayd wasiirkii maaliyadda in dabcan maamulidda maaliyaddu ay adiga kugu adkaatay oo aad madaxweynaha ka codsatay in Xirsi kula shaqeeyo oo arintaasi markii dambana Xirsi kala shaqeynayay warkaasi ma jiraan hadalka sida loo yiri ma ahayn sidoo ahaabaan idinka waramaya sidoo ahaa waxay ahayd markii aan meesha wasaaradda la ii dhiibay shaqaaluhu 4 bilood bay mushaharkii lahaayeen ciidamaduna 2 bilood bay lahaayeen raashinkii ciidamada iyo kii cusbitaalada iyo kii jeelashuna uu iskaaray bilo oo lacag badan baa ayuu ahaa wax aan khasnada ugu nimidna ma jirin kolkiiba waxaana soo food saartay sidii mushaharka shaqaalaha aanu u bixin lahayn kolka Xirsi waxaan kala tashaday ma jirin madaxweynahanse aanu ugu tagay waxaan leeyahayna madaxweynaha ka marxaatiya waxay ahayd waraaqa badan buu ka soo qorayay Xirsi ka soo qadiyay madaxweynaha kolka siday doonaanba ha uga soo baxeen waxay ahayd wax ku badan wixii aanu markaa aanu haynay kolka madaxweynaha aanu tagay waxaan arkay inuu fidma abuur uu ku jiro Xirsi intii aan meeshii joogayna had iyo jeer wuxuu oran jiray anuun bay saaraan jiray kolkaas ka timaada taa wuxuu yidhi waraaqaha uu ka soo qorayay madaxweynaha ee odhanaya waxa lagu farayaa waxaa bixi wixiina ma hayno intooda badan madaxweynahaanu tagay kolkaan fahmay inuu ninkani nin hagaagsan aanu ahayn madaxweynaha waxaan ku idhi madaxweynahana ka marxaatiya waxaan ku idhi waraaqahan aad soo qorayso ilaa waxaynu haynaa ma jiro oo saasiye waxa fiican inaad wax ogaato wixii aynu hayno oo dabeetana sidaa darteed aad ku soo qorto wixii aynu bixin kareen si taa loo gaadho waxaan idhi waraaqahan uu Xirsi ii keenayo ee uu leeyahay taana bixi baa lagu yidhi taana bixi baa lagu yidhi taana bixi baa lagu yidhi waxaan ku yidhi madaxweynaha wuxuu ku odhan doonaa ina Xaashi wuu diiday wuu waayo ku odhan maayo ina Xaashi wuu diiday buu odhanaya ujeedadiisuna waa nooca kolkaas aan taa uga hor tagno waxaan madaxweyne kolka waxa fiican adoo og wixii aynu haysano in kolka wixii kharashee baxaya accordingly ku qorto kolka waxaan ka codsaday madaxweynahan taana ka marxaatiya inuu Xirsi ii yimaado aroortii oo isla eegno bal waxaanu hayno khasnada noogu jira gacanta noogu jira iyo waxa deeman noo yaala dabeetana anagu ogtii inaan aan soo qorro uu ila ogaado si aad u ogaataan wixii aan haynay iyo wixii aanan kolkaa dabeetana waxaan kaga hortegayeena halka ay tahay inaanan hayn wuxuu ku odhan baan ku idhi madaxweyne in Xaashi wuu diiday bixin maayo buu yidhi dabeetana kolkay kugu badato wuu diidaydii waxbaa kaaga duuli doono oo waxa laga yaabaa inay wax ku galaan si ayna taasi u dhicin isagu aroortii ha ii yimaado waxaanu haynaan isla eegno 5 maalmood kolkuu ii yimid ayuu dabeetana goostay haddana ilaa uma jeedin wanaaguma jeedin ayuu goostay sidii baanu ku wadnay midna masaxay waxna ima eegayn waxaana diidanaa inuu been iga sheego oo madaxweynaha ku idhaahdo wuu diiday waa intaasu ninkan ugu yeeriyay madaxweynahana ka marxaatiya kelimaadka aan ku idhi taasi waa ta kale
injineer maxamed xaashi cilmi wasiirkii hore ee maaliyadda xukuumaddii madaxweyne silaayo hadalkiisa uu sii watay waxaanu intaasi raaciyey xirsi ma wax aqoon u lahaabaa jiro oo dhaqaalaha oo wax ka weydiinayo local governmentkii baan soo maray waxaan soo shaqeeyey ma ahayn wax aan xirsi uga baahnaa ma jirin sida muxuu ahaa runta xirsi looga baahan karaaba ma jiro nin fudud weeyaan aad u fudud kolkaa ma jirin waxaan uga baahnaa oo aqoonay anu waan aqaanay hawshayda waanan ka soo baxay laakiin waxa iga qoray waa been markhaatigeediina waa madaxweynaha badri koosaar maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa